Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Walaalayga qaaliga aad baan idin salaamay dunida dacladeeda meel walba ka joogtiin. Maanta mowduuca aan ka hadlayno wuxuu yahay hooyada uurka leh iyo nafaqada ay u baahan tahay ama uu u baahan yahay cunuga jirkeeda ku beeran. Iyo waxaan ka hadlaynaa insha Allah cunooyinka qaab kala duwan iyo marxaladooyin kala duwan oo hooyada uurka leh ay marayso ilaa iyo 3 marxalad baan u kala qaadi doonaa. Maanta waxaan kaga hadlaynaa qaybta hooyada markay uurka leedahay marxaladda u horeysa ay marayso iyo cunooyinka ay u baahan tahay ama 3 bilood hore 3 bilood dhexe iyo 3 bilood dambe saas u kala qaadi doonaa insha Allah. hooyo walba uur leh way ka faa'iidi doontaa haduu Ilaahay idmo insha Allah. saasi la sii socda hooyada uurka leh jirkeedu wuxuu u baahan yahay nutrition isku dheelitiran ama cuno isku dheelitiran si uu cunugaasi u helo nafaqo aad u fiican asagana ama ugu kubco jirkiisa. hooyada hadii aysan cuno cuneynin oo daciif ay tahay cunugeedana ma helaayo cuno ku filan jirkiisa maadaama uu yahay wax hadda un abuurmaayo sidoo Ilaahay ka dhigay qadartu wax waliba way qoran yihiin haddana hooyada inay dadaasho waa muhiim. hooyo quraacdaada waa inaad ka dhigataa intaan meesha aad ugu jeedid boorishka iyo fruutyada waa inaad samaysataa boorish fruit iyo looska kale hada isku darsatid masha Allah quraacina fuwaaye wax walba aad ka helaysid energy fiican ku siinayso. sidoo kale hooyadu waxay u baahan tahay qudaar inay hesho qudaarta ayada waxa u kala qaadayna dhowr nooc qudaarta cagaaran iyo qudaarta kale. qudaarta cagaaran waxay ka helaysaa folic badan maadada loo yaqaan foligaas wuxuu jirkeeda marka uurka ay qaado macdantii iyo wixii dhan dib hoos bay u dhacayaan sababtoo naf kala ku abuuran marka inay cunto greeniska sida spinachka baasbaashi spinach af Soomaali waxa lagu dhahaa koostado kale ansalaatada kale barbarooniga kale intiiba oo cagaaran oo dhan inay cunto baamiyaha kale. waxay kale u baahan tahay hooyada inay hesho hilibka ama malaayga ama ukunta looska waxaas oo dhan waa borotiino waxay ka caabinayaan lafaha cunuga. waxay kale u baahan tahay hooyada inay hesho calciumka maadada loo yaqaano calciumkana waxay aad u adkeeyaan sidoo kale lafaha cunugaasi iyo hooyada awood ay siinayaan ayagana. calciumka waxa kamid ah inay hesho hooyada la rabaa oo lafaas u adkeenayo inay cunto kale looskaas inay cunto kale malaayga inay cunto kale broccoliga waxyaabahaas oo dhan digirta intaas oo dhan waa inay hooyada cuntaa waa la heli karaa qof waliba waxay u tahay wax yar oo fudud uu heli karo. hooyo waxaad ku dadaashaa inaad qaadatid balanced diet sababtoo ah 3 bilood u horeyso waa aasaaska cunugaaga waxa waaye wuxuu u baahan yahay wax loo yaqaan foliga ironta calciumta waxaas oo dhan buu u baahan yahay borotiinka. marka insha Allah hooyooyinka uurka leh waa inay dadaalaan marxaladdu way iska adag tahay I know laakiin waa inaad try gareysaa oo wax cuntaa kulama waxyaabahaasi aad cuntid cunugan waa kulama uu caafimaadkiisa fiicnaanayo insha Allah way ku saacidi doonaan cunooyinkan hadii aad cuntid energy fiican waad ka helaysaa calcium iyo iron iyo protein inta waad ka helaysaa looska iyo malaayga iyo oranjiga afkaandhado dhamaan ku dadaal hooyada uurka leh. intaas waa iga waano iyo talo insha Allah qaybta xigta waan ka hadli doonaa fiidiyaha kale. Assalaamu calaykum.